wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo ee ku sii jeeda magaalada caasimadda Djibouti ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti ilaa hadda maxaad la socotaa Maxamed Faisal wasiirada shaqada waxaan ku suganahay madaarka Hargeysa ee Ciyaar International halka soo galay wafdiga hogaaminaya Cabdi ayaa halkan saxaafadii iyo warbaahintii waxay diyaar u yihiin in halkan oo ah goobta loogu talagalay inay mas'uuliyiintu kala hadlaan warbaahinta ay kala hadlaan waxaan filaynaa in wasiirka arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud Fatoon oo uu faahfaahin ka bixiyo safarkan dalka Djibouti ee ku tagay wafdiga madaxweynaha sidoo kale sidaan la socono wafdigaas la mid ah waxa isna uu ka soo dhoofiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya wafdigaasna waxa uu hogaaminaya madaxweyne Farmaajo waxa aynu sugaynaa waxa uu inuu yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda ee faahfaahin dheeraada inaga siiyo safarkan iyo hadalka waxyaalaha uu ku saabsanaan karo sidoo kalena waxa aynu ka wardhowraynaa hadalkaas marka uu furmo waxyaabaha ka soo baxa waxaynu diyaar u nahay inaynu bulshada u tabino wararka la xidhiidha safarkan madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminaya maxamed waxaad la socotaa in wadahadalladu aanay ahayn markii ugu horeysay ee ahayn kuwa soo taxnaa bal maxaad filan kartaa in kaga duwanaan kara shirarkii hore Faisal waxaad moodaa in wadahadalladii hore kani inuu ka duwan yahay baad moodaa markaad eegto wufuudda labada dhinac ka qaybgalaysa iyo culayska ay leeyihiin waxaa la filan karaa in wadahadaladani ay noqdaan wadahadallo waxyaabaha ku hore laga wada hadlay waxyaabo ka duwan laga wada hadlo oo arrimo masiiriya hoos u dhaco waxaa kaloo caddayn u ah in wadahadaladani ay ku hore ka culus yihiin wadamo ilaahay haatan la sheegaya inay dibadda ka riixayaan oo ugu horeeya waddanka Mareykanka Itoobiya iyo dalka Djibouti oo isla kuga shandhigay marka waxaa laga yaabaa in wadahadaladii hore kan uu ka duwanaado oo waxyaabo kale oo ay noqotee faa'iido u leh inay ka soo baxaan marka hadda waxaa inoo soo galay wasiirkii aad iyo aad bamaasan Maxamed Faarax Qoomade ayuu ahaa oo ka tirsan warbaahinta SBC oo ka mid ah warbaahinta wariyaasha hadda halkan saaka u yimi inay tabiyaan isla warkan ku aadan wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo ee ku sii jeeda magaalada caasimadda Djibouti ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti warbaahinta hadda ayaa halkan isku diyaarinaysa waxaana soo istaagay stageka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Fatoon oo isagu ka mid ah wafdiga madaxweynaha ee ku helinaya safarkiisa Djibouti waxaana madaxweynuhu hadda uu gudbay qolka VIP-da wasiirka arrimaha dibadda waxa uu faahfaahin ka bixinayaa ujeedada hadalkiisa halka waxaan halkan soo taagay inaan idin sheego dalka ka baxayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdi wafdigaas uu baxaya dalka Djibouti madaxweynahana waxa ku weheliya gudoomiyaha golaha guurtida ama golaha baarlamaanka guud ahaan afar wasiir iyo adna aadan Ismaaciil oo ah la taliye xagga aqoonsadaadka Jamhuuriyadda Somaliland wafdigaas wuxuu baxayaa shir inuu ka qayb galo shir lagu casubay oo ay soo qaban qaabiyeen dawladda Djibouti iyo dawladda Mareykanka shirkaas oo isla mar ahaanta ay ka soo qayb galayaan madax kale oo badan oo ka mid yahay ra'iisul wasaaraha dawladda ama dalka Itoobiya wafdigaas waxaa la isugu keenayaa Somaliland iyo Soomaaliya ujeedada shirku waa intaas ajandihiisa iyo waxa laga wada hadli doono iyo arrimahaasu marka la isu tago baa laga wada hadli doonaa waxaan halkan hadda ka sheegdo oo aan ma jiro insha Allahna waxaan rajaynaynaa inuu afkarad iyo guul ku dhamaado intaas u baan idin sheegaya